soo dhawaada saaxiibayaal halkani waa Boundless Media qodobada wararka ee maantana waxaa kamid ah madaxweyne Ruto oo sheegay inay waajib tahay in qof walba oo Kenyan ah uu bixiyo canshuurta mucaaradka wadanka oo ka falceliyay hadalkii Ruto aan ku bilownay madaxweynaha dalka William Ruto ayaa shalay waxa uu sheegay in lagu heshiiyay in qof waliba oo Kenyan ah uu bixiyo canshuurta iyadoo aynan jirin cid laga cafinayo. Ruto ayaa carabka ku adkeeyay in qof waliba ay qasab ku tahay bixinta canshuurta iyadoo aan loo eegayn mansabkiisa bulshada dhexdeeda. Tani ayuu ku tilmaamay inay tahay sida kaliya ee wadanka lagu fududeyn karo deymaha shisheeye sidoo kale loo xaqiijin karo horumarka. Hogaamiyaha wadanka ayaa gaashaanka u daruuray eedeymaha loo soo jeedinaya ee ah in ka hadalka canshuurta uu ka leeyahay dano siyaasadeed. Madaxweynaha dalka ayaa dhanka kale maamulka canshuurta ee KRA uu baaqay inuu Kenyaanka fursad u siiyo bixinta canshuurta iyagoo aan la dhibin. Waxa uu dhanka kale hay'adaha dawladda ku amray in khilaafka kala dhaxeeya KRA in la tigsan maxkamadaha balse ay ka heshiiyaan. William Ruto ayaa xusay in marnaba uu ogolaan doonin in kheyraadka dadweynaha lagu bixiyo arrin lagu xalin karo qaab maxkamadda ka baxsan, isagoo intaasi ku daray in amarkan dhawaan lagu soo saari doono wareegto. Dawladda Kenya ayaa shaacisay inay baaritaano ku wado in ka badan 300 oo shirkadood kuwaasoo la sheegay in aanay canshuur bixin maadaama ay xiriir la leeyihiin mas'uuliyiin hore. Maamulka uu hogaamiyo madaxweyne Ruto ayaa ku doodaya in shirkadahaasi si sharci ka baxsan loogu sameeyay canshuur dhaaf isla markaana loo baahan yahay in laga qaado waxa lagu leeyahay. Warbaahinta Kenya ayaa ku waramaysa in shirkadahaasi ay ku jiraan kuwa ay leeyihiin qoysaska madaxweynayaashii Soomaaliya dalka gaar ahaan Kenyatta iyo Moi. Madaxweyne Ruto oo ka hadlay arrinta canshuur bixinta ayaa sheegay inay waajib tahay in qof kasta oo ka shaqeysta dalka uu bixiyo canshuurta sida kaliya aan ku bixin karno deynta badan ee dalkan lagu leeyahay ayaa ah in dhamaanteen aan canshuurta bixino, ayuu yiri Mr. Ruto. Hooyada dhashay madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta ayaa beenisay in shirkadaha qoyskeeda aanay bixin jirin canshuurta laga rabay. Haddii uu qofka bixin waayo canshuurta ku waajibta waxaa jira shuruuc lagu xisaabtamo oo maxkamad ayaa la geyn karaa kadibna hantidiisa ayaa la xaraashaya. Ma aha in magac xumeyn loo isticmaalo canshuur bixinta si loo muujiyo in xukuumadda ay shaqeynayso, ayay tiri hooyada madaxweyne Uhuru Kenyatta. Dhankiisa hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa ku eedeeyay madaxweyne Ruto inuu si sharci darro ah kula wareegay xukunka Kenya, isagoo sheegay in arrintani canshuurta ay tahay marmarsiyo. Dadka canshuurta la baxsada iyo dambiilayaasha oo dhan waxa ay ka tirsan yihiin xukuumadda Ruto, marka waxa uu iska dhigayaa inuu dambiilayaasha ka raadinayo meel kale, ayuu yiri Raila. Xukuumadda Kenya oo ay soo fosaartay dhaqaalo yari xooggan ayaa doonaysa inay kordhiso dakhliga canshuurta oo ay gaarsiiso ilaa 24 bilyan oo dollar sanadkii. Deyn aad u badan iyo sicir barar sareeya ayaa culays weyn ku hayo dhaqaalaha Kenya, waxaana maamulka cusub uu dadaalaya inuu fuliyo ballanqaadkiisii ahaa inuu wax ka bedeli doono nolosha shacabka. Wargeyska Daily Nation ayaa sheegay in baaritaanada ay wada dawladda aanay ku koobneen shirkadaha xiriirka la leh madaxdii hore, balse ay jiraan kuwa ay leeyihiin mas'uuliyiin haatan xil haya oo doonaya in canshuurta laga qaadin.